السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتود السلامي ماستر دريد دافيدي عالمك كتبتان إن شاء الله وتعالى سدد عوان كسربو كسر كيسين waxaan doonayaa inaynu maanta barnaamijkeena ku soo qaadano sheeko yar oo run ahaantii gaaban isla markaana ku jirto xikmad aad iyo aad u ballaadhan lana soo koobi karin. haddii aad xiiseynayso dhegeysiga sheekadaas qurxoon ee xikmadda buuxda ku jirto la sii soco barnaamijka insha allah. haddaynu toos ugu gudagalno barnaamijkeena maanta isla markaana barnaamijkeena aynu kaga hadlaynay sheekada yara kooban ee ay ku jirto xikmadda aadkii aadkoo ballaadhan ee aan la soo koobi karin. haddaba sheekadu waxay odhanaysaa sida tan: oday ayaa maalin wuxuu hore usii kaxaystay saaxiibkiis isla markaana wuxuu doonayay inuu tago webi u dhowaa xaafaduu degnaa. webigaas oo run ahaantii aad iyo aad u weynaa isla markaana qurxoonaa. odaygii iyo saaxiibkiis ayaa markay webigii gaareen si degan u fadhiistay isla markaana si ay ugu nastaan u daawanayeen biyaha aadkii aadka u quruxda badan. odaygii ayaa wuxuu ku raaxaysanayay biyaha qulqulitaankooda aadkii aadka u quruxda badan eena indhuhu mar quryaata kasii jeesanaynin. intaasna waxaa u dheeraa inuu odaygu udgoonsanayay saxasaxada udgoon ee biyuhu leeyihiin iyo ubaxyada dhaadheer ee ka soo laadlaaday geedahaas ku hareeraysan webigaas oo lahaa run ahaantii geedo aad iyo aad u dhaadheer oo ku hareeraysan. qofkuna mar qura haddii ishiisa ku dhacdo siday ishaasi uga soo jeesata ay adag tahay. odaygii oo run ahaantii saga jira xaaladaa degan isla markaana qurxoon ee uu saga tamashlaynayo eegidda iyo daymada ay u dheer tahay inuu iska udgoonsanayo saxasaxadaas isaga iyo weliba saaxiibkii oo ku weheliya ayaa hal mar ishiisi waxay qac ku tidhi dibqallooc ay wataan xoogga biyaha qulqulaya ee webiga. odaygii run ahaantii uu ka naxay dibqalloocii wuxuuna u kuurgalay inuu badbaadiyo, balse dibqalloocan maxaa ka raaci doona. halkii biyuhu u soo wadeen dibqallooca ayuu odaygii gacantii u fidiyey isagoo doonaya inuu dibadda dibqallooca uga soo saaro biyaha. dibqalloocii ayaa gacantii ka qaniinay odaygii, balse odaygii muu samrin. gacantii ayuu la soo noqday oo aad bay u xanuunaysay, balse uu qaylinayay. isagoo qaylinaya ayuu haddana gacantii kale u fidiyey. isla gacantii labaad ayuu dibqalloocii haddana ka qaniinay, mar saddexaad, mar afraad. marar badan ayuu dhaawacyo aan la soo koobi karin dibqalloocii u geystay odaygii, balse odaygii wuxuu wadaba ugu dambeyn wuxuu ku guulaystay inuu dibqalloocaas badbaadiyo isla markaana dibadda u soo saaro. run ahaantii waxaa arrinta la fajacay oo la yaabay saaxiibkiisii wehelinayay odayga isla markaana la socday. odaygii ayuu wuxuu weydiiyey su'aal, wuxuuna ku yidhi, oday maxaa kugu kallifay waad isugu dhibaataynaysaa badbaadada dibqalloocan cadowga ah isla markaana adiga kuu geystay dhaawacyo badan, sun badanna kugu muday, naftaadana waxyeelo badan ay u soo gaaraysaa. haddana aad ugu sii dhiga adeegaysaa oad ugu sii madax adeegaysaa inaad dibqallooca u dulqaadato oo aad ka soo badbaadiso biyahaas. odaygii oo run ahaantii si xikmadaysan doonaya inuu saaxiibka wax u fahansiiyo ayaa wuxuu ugu jawaabay, saaxiibkayo si wanaagsan ii dhegayso. aniga dabeecaddaydu aniga waxaa weeye inaan dulqaato, sidoo kale aan dabacsanaado, sidoo kale dadka xaaladda adag ku sugan aan badbaadiyo. waxaase xayawaan iyo bini'aadam ku doonaba ha ahaadee, balse dibqallooca dabeecaddiisi waxaa weeye inuu dadka qaniino, waxyeelo geysto, sidoo kale uu markasta ku dadaalo inuu dadka iyo xayawaankaba dhib geliyo oo uu suntiisa ku mudo. ma aha qaniyadiisu inay beddesho aniga dabeecaddayda. markuu qaniinay haddii aan iska dayn lahaa oo aan halkaa kaga tegi lahaa wuu ku dhiman lahaa webigaas. dabeecaddiisii qaniyada ahaydna waxay ka adkaan lahayd aniga dabeecaddaydii ahayd dulqaadashada iyo inaan u tudho xayawaanka iyo bini'aadamka isla markaana aan badbaadiyo. sidaa daraaddeed qaniyadiisa dabeecaddiisu maaha inay beddesho dabeecaddayda ah inaan dadka u dulqaato iyo xayawaankaba isla markaana badbaadiyo. isaga daraaddiina dabeecaddayda qurxoon uma beddelayo oo qaniyadiisu waxba igama qaban karto. run ahaantii waxaa jawaabtaas ku qancay
saaxiibkiisii wehelinaya ee la socday waana jawaab aad iyo aad u qurxoon isla markaana ay ku dheehan tahay xikmad aad iyo aad u buuxda. haddaba aynu soo dhaadhacna duluucda sheekada ayaa waxay tahay in dabeecadaada xaalad kasta aanay bedelin, xaalad kastoo adag iyo xaalad kastoo fiicanba dabeecadaadu waa inaanay isbedelin oo sideeda ay ahaataa. marnaba yayna xaaladuhu isku dayin inay adiga dabeecadaada bedelaan, weliba xaaladahaasi siday doonaan ha u adkaadaan. intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta aynu kusoo qaadanay run ahaantaa sheekadaas ay xikmadda buuxda ay ku dheehanta isla markaana ku duuban tahay. haddii aad nagu cusubtay oo markii koowaad ay kugu tahay kanaalkan, nagu soo biri si aad waxyaabo badan nooga faa'iido. waa aniga maxamed siciid cali maxamed xikmaawi, halkaad ka dheehanaysaan barnaamijkuna waa Kaska Media. salaamullaahi calaykum.